نوال aad iyo aad soo dhawow Nawaal waa gabar hadda ka hor aan soo bandhignay sheekadeeda oo iyada oo sidan oo kala baraha bulshada ugu soo qori jirtay inay shaqo doon tahay kuna guuleysanay aniga iyo wariye Yaxya Jinow inaan fursad shaqo u raadino oo helno markii booga kala duwan ay wax ku soo qortay oo keyga uu ku jiro wariyaal kala kooda ku jiraan gabar Soomaaliyeed aadna uga danqanay laakiin Nawaal bal marka hore noo waran bal shaqadii hore aan kugu ogaa maxaa ku dhacay waayo waxaan u jeedaa hadda adigoo page Atoosha soo dhigaya muuqaal ay qoraal dhahayo shaqan raadinaya asagina uu ma aragtay jawaab dadku aysan jeclaysan ka bixiyay maxaa dhacay shaqadii horta shaqadii oo maalintii oo maamo basma dhamaan joogay maamulka banaadir oo Jinow joogay walaalkay qaali oo hadda shaqada la ka tagay daraada isla hadlayno oo u sheegay hataa walaa aniba shaqada waa ka tagay oo dhahay marka arima la dhibaato ma lahan marka shaqada hadda waa ka soo tagay oo maanan ka soo tagin laakiin shaqada waa la xiray meesha foorkiisa ahayd waadna ogtahay foorkiisa ahayd forex ana ugu shaqeynay soo dhaweynta u fadhiyay bishii 300 ay siinay ma sha Allah shaqo fiican ee ina horta macnaha been ka sheega ama iskala aan ka faana ma aha ma sha Allah $300 ay siinay intadeeda meesha ku cunay qadada asha iyo quraan guriyana ku cunay hadda maxaa dhacay marka meesha forex cudurkana imaaday markii wax iga duwas cudurka maanan jirin hadda cudurka imaaday kadib meesha waaba la iska xirayba oo ninkasta gurigiisa 4 bil cudurku soo u bilaabay iyo ka hortiisba hal bil bisan ka qaatay $300 halka bil gurigi iyo korontada iskaga bixinay bishii labaad cudurkana imaaday kasii dambana ma wax bisheer maanan qaadin guriga iska marka commentiga ku soo qortay waxaan dhahay shaqo doona ahay shaqo marka waxa iska raadina oo guri camal iska raadina ama nadaafad kadib ninkan Atoosha ii soo jawaabay wuxuu dhahay please damba meeshan shaqo hay u soo qorin iga dhaafo ida okay ada walaal marka wixii qaadeen screen ay ka qaadeen dadkii baraha bulshada ugu faafiyay laakiin waa adiga maxaa keenay arintaas horta way garanaysaa in Munasaro ma sha Allah wiilku ugu horeeyo nolosheeda asaasay tahay mar labaadna ku soo wiciga oo kula soo xiriiri waa ka yar xishooda ay gala waxa daraada wiilkani shaqo abuur ku sameeyay meel micnaha laga codsaday oo ku diray video ka duubay si fiican lagu soo dhaweeyay islahay ma baande marka dib uu ku soo noqon waayay lambarkaada waan heeyay ina iga qabanaysid ila hadlaysid waa ogaay marka aniga isku xishooday micnaha waa yar sheexay wiilki daraad garabka ku sii mar labaad hadan hada u naqatida isla Nawaal waxa laga yaabaa inuu dib ku arkay bal Nawaal iska daa walaalkaada dhibina isla marka asigana dhoodo page-kiis ku soo dhigay mar labaad si kale loo fahmaya Nawaal abayo horta walaashii baa tahay gabar Soomaaliyeed tahay ma arki karo adigoo ma aragtay si aan wanaagsaneen shakhsi Soomaaliyeed oo kugu hadlaayo oo ma aragtay dadkii Soomaaliyeed aan lamid ahay aad uga xanaaqay garasho la'aanta ninkaas uu sameeyay aadan runtii uga xumahay tan kale laakiin abayo waxa waaye inaan wargelisay heed shalay dadaalkii aan galnay mid lamid aan gali lahayn wax dhibana ma jirin hadda bal xaalka guud ka waran ku faafiyeen oo groupyadii la dhigay waxyadii dhamaan aad waa la dhigay dad Soomaal lagu ma sheega hal mar adeeg ka cambis waa marka walaal waa sida xalka sida soo u jira shaqada waa ka soo tay 6 bil ilaa 5 bil maan mushaar qaadinin duruufii darad aan adeeg ku soo wacay aan ku sheegay ilaa had i haysta marka insha Allah bro ii soo ducee arintan soo u jirta mar kale aan galeena insha Allah bay Nawaal hawsha markana waa galeena ilaa hadda meeshii way xiranta xitaa 500 oo hooyadeeda aan warsadaya jirta oo waxa meel forex shaqaliisii 500 aan oo dhiga wixii oo faa'iido ku soo baxday 250 oo ku soo diray hay'ada hooy macna soo deemina ku soo diray 500 u deem hooy ii soo dirtay hooy kadib waa dhigay 500 waa iga dhuntay shaqadii meesha ku baabaaday may baro waa shaqalaana 5 bil shaqalaana Nawaal bay waa dareemaya aad aan u maasan tahay dadka Soomaaliyeedna aad ay kula damqadeen shalay waa dadkii ayaga fariintaadii baahiyay maantana ayaga diyaar u ah waxna ha u joojinin qofka ma aragtay digashada sameynaya adduunka tilkal ayaam ah maanta ninkii ladan bari inuu ladleen baa dhici karta marka abaay waxa waaye ha u joojinin aan ku dhihi lahaa horeyna u soco waana dadaalina insha Allah aadan u maasan tahay